gurigaada negative-ka ku jira ama il ha noqoto ama xasad ha noqdo ama sixir ha noqdo ama shaydaan iyo jinac maashiis ha noqdeen ama xumaan kale oo bili aadan ka timid ha noqotee negative-ka gurigaada ku jira sida oga saari kartaa adoon cid kaleba aadan u baahanba sirtaan aan kula wadaagayo sameeh biidn illah haddii gurigaada aad fahmi laadahay oo guri qariban uu yahay guri xaaladiisu aysan xaalad caadi ahayn haddaa rabto gurigaada inuu xasilooni iyo deganaansho helo dhibaato kastana intay ka baxdo banaanka negative kasta uu tago guri degan oo habiya uu noqdo aad doonaysid sidaan aan kugula talinayo dhageyso oo fuli dhageyso oo kaliya mehe 7 maalmood oo isku xigta oo aan kala jar ahayn baa sidan samaynaysa waxa weeye inaad suuratu idaa zulzilat cod dheer cod la maqlayo suuradaasi aad ku akhrisid idaa zulzilat al-ardu zilzaalaha guriga adoo dhex wareegaya oo meel kasta galaya marka laga reebo musqusha sidoo kale aad ku akhrisid suuratu was-saafaat haddaadan awoodin oo akhrin karinna aad shidaysa waad sidaysa iyadoo la soo celcelinaya duuban oo YouTube ku jirta waad ka dhex shidaysaa insha Allah taala baqra iyo suurado kale iyo hawlo kale waad garanaysaa laakiin sir kale ma ayaan kugu daro aayatul kursi ayadana 7 mar baad guriga ku akhrinaysaa oo dhex wareegaya haddii qolkooda caruurta ay ka cabsadaan oo ay waxba wareegaya wax ka sheegtaan 4 aayatul kursi 4 dhinac kaga akhri qolkaas sidoo kale guriga waxaad ku akhrinaysaa adinka 7 jeer ku adinaysaa adinka salaada loo adimo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an saasaad ugu akhrinaysaa adinka intaas ku dadaal gurigaada ku akhri laba waqti baad samaynaysaa maqribkii iyo salaada subax kadib صبحي يا قلبتي يعني مغربكي صبحي بعد سمينسا تدبر اسكو حكتا اذا زلزل الصبح حاسن تدبر اخرين قلبتينا تدبر ايات صبحي تدبر ايات الكرسي قلبتينا تدبر سيدو كلا ادنك الصبح تدبر قلبتينا تدبر سوره والصافاتنا سيدو كلا هدادن ايدا اودنا اخرين كرين اما ادا اقوننا تي في قد كشريسا عدك حوا يرا كرو قاديسا ان شاء الله انت هداسا لازمتني يقين التي ماديد shar oo dhan guriga ka baxaysa xasad walba waa baxaya baranbarada guriga nafta ku keentay khaati ka taaganta waa baxaysa dhibaato dhan banaanka aadayeen insha Allah taala qofkii tala khaas u baahan taleefanka xafiiska ay kala soo xiriiri kara insha Allah taala ee u baahan quraamin iyo talooyin kale ama qoysyada ama waxyaalaha ku saabsan eber 7 ayaa u dambaysa Kenya ka baxsan tahay furaha Kenya ku soo gali karta halkaan ay idin jooga insha Allah taala muhiimadeedu waxa weeye inaan adoomaha Ilaahay saacideeyo ay caafimaadaan oo ku caafimaadaan Ilaahay kalaamkiisa kuna gaaraan rajada ay rajeynayaan insha Allah taala cadawna Ilaahay kaga xijaabo